afar shay hadartaan intii ilaa iyo hadda ma laga dhameystay intaan waxyaalahan ku mashquulsaneeno hebelaa laga qaaday hebelaa loo geeyay hebelaa loo sii wadaa iyo hebelaa laga sii wadaa intaan ku mashquulsaneen afar shay oo wadankan really tirtiri karo ayaa na laga soo saxday Soma Oil and Gas la socotaan shirkadii lagu wada wareejiyay badda iyo berigaba wax alaala wixii khayraad Soomaaliya ay haysatay runtii aan markaan gaaban idinku sheego waa xaqiiqadaas oo aanan ogeyn ilaa iyo maantadan inta dawladda ay kula heshiisay ilaa iyo maantadan baarlamaan aan ansixinin ilaa iyo maantadan aanan ogeyn dadka ka hoos shaqeynaya xataa madaxdeena maanta qaar ka mid ah ay ku jireen iyo dhibaatooyinka ay wadankaas u keenay taas waa mid maritime issue badi tiyahay oo dacwada dhexdaas ama dhexdaasna la yiri waa la bilaabay ilaa iyo haddana sheekadeeda meel ay ku dhamaatay aanan la ogeyn laakiin weli damacaas uu jiro dawladihii ka dambeysana Norway iyo Kenya ay weli asxaabteena yihiin qaarkoodna masaariifteena qaar ka bixiyaan marka dadkii waa in la baraarugo in la fahmo danta adiga laga leeyahay wadankan laga leeyahay inaad fahamsan tahay qof kastoo shacab qof kastoo muwaadin waa inuu fahmaa taas marxaladan hadda marayno waa marxalad qatar ah waana mid oo really dadkina ay baraarugsan yihiin laakiin dadkaas baraarugsan meel kale oo qalad ah hadii loo jiheeyo waxaan u maleynaa khasaarihii hore khasaare kale ku dar waay marka waxa loo baahan yahay in jihadii jihayntii inay fiicnaato loo baahan DPW oo Dubai Ports oo ognahay in iyagaasna Blackwater ay ku xiran yihiin Dubai kaliya adduunka inay iska tagto oo mataqaanaa lama siinayo waxyaalahan kale maamulada noocan oo kale ama inay mataqaanaa ay maarayso dekadaha waaweyn oo adduunka مثلا kamid laakiin dadka ka dambeeyo dadkaasna khasaaro badan ay keenaan waa calooshoodu shaqaystayaasha maxay dhibka weyn oo ay leeyihiin waxa waaye qof ay accountable u yihiin malaha cid la xisaabtanta malaha qof oo ay dhageysanayaan ama oo yani ku soo noqon karo dhig dar maxaa saan u sameeyeen malaha marka bini aadanka sidiisaba marka la siiyo quwo oo aan lagu la xisaabtamaynin wuxuu u badan yahay badanaa inuu dad kale ku xasuuqo madaxdeena waxay ku leeyihiin waa ogolaanay deyntii maxaa u ogolaateen ma daba gasheen oo ma raadraacaad samayseen ma soo hubiseen inaan waxaan lagu leeyahay in kaleeto iyo ma yaal wixii maadaama uu burburay wax laga qaban kara malaha isbuucii hore wasiirka asaas ahaa oo maaliyadda walaha waxaan ka qaban karna malaha macluumaadkii ma hayno rakadkii ma hayno adduunka waa saas uma shaqeeyo haddii ay dhab idinka tahay dad badan oo waxa jiro la hayr gareyn karo oo dabagali karo raadin karo oo khibradeeda la cilmigeeda leh ogaan karo lacagahan goormay ahaayeen yaa nagu leh yaa bixin doona sidee loo qiimin karaa dadkii yani Soomaaliya wadan u ahaa waagaas deemanka qaar waxa jiro oo aan ba xataa sharciyan lagu qabsan karin deemihii hore la qaatay qaar waxa loo adeegsaday sidaan ognahay ummad kale oo Soomaaliyeed walaalaheena loo adeegsaday lagu xasuuqay lagu dilay deemanka noocaas marka loo isticmaalo sharci qoran oo waxa jiro Mareykanka ay waa hore isticmaaleen lacago oo Spain ay deymisay Panama oo Mareykankana markii dambe diiday inuu bixiyo yiri because lacagaas waxa loo adeegsaday in dad lagu dulmiyo soo waxba bixinay waxyaalaha soo dhanaa jiro laakiin haddii sheekadoo dhan ay noqoto shantii iyo barkii waan ogolaanaynaa si deyn kale naloo siiyo dan wadankii oo qarab saarnaa qarkii ka tuur waay shacabka maanta marka waxa laga rabo waxa waaye intii hore ahayd in mar walba
erayada qofka na saqraamiso ama na hurdisiiso taas inaan ka koran oo mar walbana aan isweydiino shakhsiga hadlaaya iyo erayada uu leeyahay iyo camalkiisa ma iswaafaqsan yihiin hadday jawaabta haa tahayna qofkaas hala taageero oo lagu taageero camalkiisa asigii ilaahay ka dhahaysaa wixii warkiisa ku jiray wuxuu qalbigu ku qarsanay laakiin marba hadday isdiidayaan labadii shay dan waxaana mas'uul anaga nasaaran waajibka nasaaran waxa waa inaan qofkaas ku diidno inaan ku saacidin meesha uu noo wada iyo waxa uu noo wada Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay dib u heshiisiin dhab ay u baahan tahay